ka waran adigoo hal talaabo qaaday dabadeedna aad gashay dal kale maaha adigoo diyaarad raacay ama xuduud dhir ka gudbay hal talaabo oo keliya taas ayaana maalin kasta ku dhacda boqolaal qof oo booqda magaalada Roma waxay u socdaan inay arkaan meel aad u yar oo dunida inteeda badan saameyn ku leh meeshaas waa Vatican City marka ugu horeysa aad aragto waxaad leedahay waa qayb ka mid ah Talyaaniga laakiin maya waa dal madax bannaan oo leh calankiisa baasboor u gaar ah iyo hogaamiye u gaar ah waxaase ka siyaab badan dalkan waa kan ugu yar dunida axadiisu waa qiyaastii 0.44 kilometer square dadka degan xitaa ma gaaraan 1,000 qof haddana sanad kasta malaayiin qof ayaa u safra halkaas sababtu maaha quruxda dhismayaasha oo keliya waa in Vatican ay tahay xarunta kiniisadda Katoliga halkaas oo uu degan yahay Pope oo boqolaal milyan qof u arkaan hogaamiyahooda ruuxiga laakiin sheekada Vatican maanta ma bilaaban qarniyo badan ka hor ayay ahayd meel ay boqorro iyo hogaamiyaal u talo u imaan jireen go'aan halkaas laga gaarayna waxay bedeli jireen taariikhda dalal badan sanadkii 1929 Vatican waxaa si rasmi ah loogu aqoonsaday dal madax bannaan inkastoo uu yahay dalka ugu yar adduunka gudihiisa waxaa ku yaal St. Peter's Basilica Sistine Chapel iyo farshaxan uu sameeyay Michelangelo kuwaas oo maanta ka mid ah hantida ugu qaalisan ee bini'aadamku leeyahay marka aad maqasho magaca Vatican City ha ku fikirin oo kaliya dal yar oo ku dhex yaal Rome ka fikir meel yar oo saameynteedu gaartay adduunka oo dhan dad badan waxay rumaysan yihiin in awooddu ku jirto dhul weyn ama ciidan xoog leh laakiin Vatican City waxay tusaysaa in meel aad u yar ay saameyn ku yeelan karto dunida oo dhan mararka qaarkood waxa ugu weyn maaha waxa indhahaagu arkaan waa saameynta ay dadku dareemaan